qaybaha kala duwan ee bulshada ku abtirsata xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa ku kulmay shirweyne ay kaga arrinsanayeen xaaladda xisbiga laantiisa Norway sida ay haatan tahay iyo sidii dib loogu soo dabaali lahaa hanaankii guntigiijiska ahaa ee xisbigu ku soo caanamaalay. shirkaas oo ay ka qayb galeen guddigii hore u hogaamin jiray xisbiga xafiiskiisa Norway iyo ka cusub ee haatan talada loo dhiibay. waxaa hadal ka jeediyay wakiilka Soomaaliland ee dalka Norway Sulub Xuseen Warsame oo ahaa gudoomiyihii hore ee xisbiga laantiisa Norway. waxaana wakiilku warbixin ka siiyay ka qaybgalayaashii kulanka go'aankii ay xukuumadda Soomaaliland ku horjoogsatay dalabkii xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu ku doonayay inay xafiis kaga furato Soomaaliland, kaasoo uu sheegay wakiilku in xukuumaddu diiday markii ay aragtay in shaqadiisu ka soo horjeedo qaranimada Soomaaliland. wakiilku waxa kale uu ka warbixiyay waxqabadka xukuumadda xisbiga kulmiye ka soo jeeda ee talada dalka haysa. waxa kale oo wakiilku sheegay inuu socdo qorshe lagu midaynayo ururada samafalka Soomaaliland ee qurba joogga ah ee dalka Norway ka jira si ay cudud midaysan wax ugu taraan ayuu yiri dalka. warbixinta ka hor waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha cusub ee xafiiska kulmiye ee Norway Maxamed Cabdi Ismaaciil oo sheegay in maamulkiisu ballan qaadayo hawlaha xisbiga inay firfircooni geliyaan isla markaana ay ku dadaalayaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen hawshii uu xafiiska kulmiye ee Norway hore u hayay. sidoo kale gudoomiyaha guddigii hore iyo odayaasha xisbiga ee halka ka hadlay dhammaantood waxay foolka saareen sidii looga shaqaysiin lahaa xafiiska loona garab joogsan lahaa maamulka cusub ee xafiiska kulmiye ee Norway. gabagabadii kulankaas oo uu furay mas'uul ka socday jaaliyadda Soomaaliland ee Norway waxa laga soo saaray qodobo ay ka mid ahaayeen in dib loo bilaabo qaraankii xisbiga ee kulmiye ee dalka Norway iyo in la diiwaan geliyo oo la furo diiwaanka xubnaha cusub ee ku soo biiraya xisbiga. Muuse Jambir, TV-ga qaranka.